boqolaal qof ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dagaalka aadka u ba'an ee ka soconaya dalka Suudaan. Wadanka Suudaan oo soo kamid ah wadamada abaalka soo jireenka kale Soomaaliya gaar ahaan kala qayb qaatay dhinaca mowduuca waxbarashada ayaa haatan wuxuu ku jira halis kamid ah tii ugu xumeed ee wadanka u galo. Hubanti la'aanta wadanka ayaa bilaabatay kadib markii kooxo ay kala hogaaminayaan laba nin oo jarama ah General Abdel Fattah al-Burhani iyo ninka isaguna hogaamiyay ciidanka Rapid Support Force loo yaqaan ciidanka Chantal Janjaweed General Mohammed Hamdan Dagalo ayaa waxay u muuqdaan ku faraha ka sii baxaya inkastoo ciidamada dagaalamaya ay ka badan yihiin 100,000 oo askari oo iska soo horjeeda haddana labada ciidan ayaa ku kala awood roon isla markaana ku kala tutur labada dhinac ciidanka wadankaasi Suudaan rasmiga ah wuxuu gacanta sare ku leeyahay dhinaca cirka iyagoo goorsii horeeyay digniin ay u direen dadweynaha ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay ka dirirayaan kooxda seejinka u dagaalanta si loo caabiyo isla markaana loo burburiyo 3 saacadood oo kaliya ayaa loo qabtay dadka muwaadiniinta inay ka guuraan dhammaan xaafadaha ku teedsan madaxtooyada qaranka ee Khartoum halkaas oo ay la dhacayaan gantaalo diyaaradaha gala baxaya iyadoo xogaga markaasi uu hogaaminayo General Hamdan ay isku dayeen inay qabsadaan airportada si u joojiyaan diyaaradaha garaacaya taasoo u muuqata in afaafka hore ee difaacyadooda ay ka dagaalamayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasoo isku dayaya iyaguna inay burburiyaan urada qiiqa meedadka daadsan shacabka barakacaya iyo boqolaal kale oo dhaawacmay ayaa magaalooyinka waaweyn wadanka oo dhan isqabsaday isla markaana waxa ay wadanka oo dhan ka soconaya olole ay dadka aqoon-yahanka ay ugu baaqayaan militarigu inay talada dhiibaan wadankan ay ka daayaan xabad isla markaana ay banaanka uga baxaan magaalooyinka waaweyn ururka dhaqaatiirta ururka ardayda ururka warbaahinta iyo dhammaan dadka oo dhan ayaa midnimo xoogan muujinaya waxayna ugu baaqayaan dhinacyada isdilayay militariga inay dhiiga ay joojiyaan isla markaana ay wadankooda ka daayaan dhibaatada Suudaan wadad aad ilbax u ah hase yeeshee masiibo aad u weyn oo taariikhi ayaa waxay ka haysataa dhinaca maamul xumada warmurtiyeed ay soo saareen madaxtooyada wadankaasi Kenya the State House Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha wadamada IGAD ay u anbabixi doonaan wadanka Suudaan iyadoo laga reebay magaca madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la garanayo sababta uu uga maqan yahay William Ruto war qoraal barti State House ka ku qoray ayaa sheegay madaxweynayaasha dalalka uu Kenya ka mid yahay isagu koonfurta Suudaan iyo Djibouti ay u anbabixi doonaan dalkaas iyadoo la filayo in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku soo biiri doono waxayna sheegeen inay halkaas ka raadi doonaan nabad ay tuugaan hogaamiyaasha isla markaana ay xabad joojin ugu baaqaan Dr. Ruto ayaa sheegay inay ka odayeen doonaan qadiyada isla markaana ay halkaas u tagi doonaan sida u kala baqtiir ahaayeen dhibaatooyinka 3 saacadood ee dhamaatay dhinaca xuquuqul insaanka loogu talagalay isla markaana la doonayay inay magaaladu ku kala nasato ayaa TV-ga kaliya hadeerta arrinta sida tooska uga soo waramaya uu yahay TV-ga satellite-ka haysta ee wadankaasi Qatar laga leeyahay Jazeera wariyaheeda Hiba Morgan oo ka soo waramaya Khartoum ayaa ku tilmaantay waxa meesha ka dhacay inay tahay wax aad fool xun waxayna sheegtay in dadku isku dayeen in lafooda la cararaan intaysan saacaduhu ka dhamaanin goorsi horeysay iyo wariyaasha kale magaalooyinka kala soo waramaya waxay sheegeen in la baqtiyay TV-ga qaranka wadankaasi Suudaan kadib markii la sheegay in warlaliskii laga saaray lama garanayo sababta arrintaasi ay u dhacday iyo cidda ka dambeysay hafayeenka u hadlay isaguna madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay Antonio Guterres iyo Stephen Dujarric ayaa sheegay in cadaaladda la meel mariyo isla markaana hogaamiyaasha halkaas ku dagaalamaya lala xisaabtamo iyagoo ku dul dagaalamaya dal ay malaayiin qof ku nool yihiin xilli ay muslimiintu isku diyaarinayeen cibaadaysiga iyo ka faa'iideysiga ay la sii daba joocsanayo bisha Ramadaan ee Ilaanasa taasoo wadamada Islaamka oo dhan ay macangagiin dhigi cabaa oo askar ay dhig ka daadinayaan Soomaaliya isaasoo kale iyagu soconaya magaalada gobolka Sool xarunta Laascaanood halkaas oo muddo 3 bilood oo weeraro xoogan isaguna ku hayo mid kamid ah dadka jabhadaha ka soo shaqeeyay askartana ahaa Muuse Biixi Cabdi la yiraahdo Soomaaliya dhanka kalena madaxa guud ee hay'adda midowga Afrika Musa Faqi Maxamed ayaa sheegay in uu diyaarinayo sida ugu qsaha badan wafti halkaas u baxa war qoraal midowga Afrika uu soo saaray African Union ay uga digeen wadamada Yurub iyo dalalka kale inay arrinta faragelin waxayna sheegeen in wadamada reer galbeedku ay arrinta uga darayaan si adraadeedna arrintu ay tahay mid Afrikaanka u dhaxaysa ururka jaamacadda Carabta oo shir degdeg ah isugu yimid ayay ku baaqeen walaalaha Suudaan inay joojiyaan dhiiga waxay ka dalbadeen in dhinacyadu ay isdejiyaan isla markaana ay nabad ku soo dabaaraan arrinta midowga jaamacadda Carabta waxay sheegeen in masiibo ay tahay wax halkaas ka dhacay shirka degdeg ah ka dhacay magaalada Al-Qaahira ee xarunta wadankaasi Masar ayaa loogu baaqay dhinacyadu in ay nabad u dhaqaaqaan iyagoo sheegay inay tani tahay halis aad u weyn oo aakhriya adduunka u xun maadaama ururka uu ka soo baxay warku yahay urur muslima waxayna sheegeen in dad kalkaasi dhiiga ku daadinaya ay masiibo aad u weyn ee lugahooda iyo gacmahooda ku qaateen dhanka kale dhinacyada oo dhan ayaa waxay dalbanayaan nabad
Mohammed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in khadka telefoonka kula hadlay labada nin isku haliilaya halkaas ku dagaalamaya Amir Faisal bin Farhan ayaa sheegay inuu khadka telefoonka u diray Abdul Fattah al-Burhani iyo dhigiisa kale isaguna jananka ciidanka la hogaaminaya Maxamed Hamdan Takalo oo ugu yeeray inay xabadda joojiyaan waxaan ka codsaday kana toogay inay xabadda joojiyaan dadkoodana u turaan waxaana u sheegay in dadka walaalaha aysan isku diri karin dhiig daata ayna taasi tahay masiir xumo jamhuuriyadda Suudaan kuridaysa gud madow ayaa lagu qoray wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency halkaas oo uu sheegay Farxaan inuu khadka telefoonka labada nin uu ku qanciyay in ay ugu yaraan ay dhageystaan hadalkiisa balse ma uusan sheegin inay ku qanceen inay xabadda joojiyaan labada dhinac waxa la sheegay in dhinacna hadeerto uusan u ekayn in laga tuturoon yahay sida daraadeedna dhinacyada oo dhan waxay raadinayaan wali ayaa leeyri gacan sarreynta hadaba dhinaca gacan sarreynta ayaa la sheegay in qolana dhinaca dhulka ku xog badan tahay ku tuturoon tahay wararka ka imaanaya magaalada Marawi ee waqooyiga waddanka Suudaan ayaa sheegay in dagaal cusub halkaas uu isaga ka soconayo wariyaha Al Jazeera halkaas ka soo warramaya Usama Said Hamid ayaa ku warramaya in waxa ay u egtahay dagaalku inuu kolkii hore lagu kala nafay garoonka diyaaradaha laakiinse dib uu uga hortay dagaalka waxa uu sheegay diyaaradaha halkaas duqeyn xooggan ay ka wadaan sidoo kale waxay sheegeen in gabi ahaanba arrintu ay u muuqato mid marka dambaysa sii darsanaysa goortii horeysay koonfurta Suudaan waxay sheegtay in sideeda isku tiilayso isla markaana ay soo dhaweynayso dhammaan dadka ka soo gudbaya xuduudda oo ay marakan ayaguna ay qaabilayaan maadaama iyaga hadda koorna si weyn ay u qaabileen dadka reer waqooyigu kadib markii reer koonfureedka go'ay ay iyaguna ay dad u qaxiyeen dhinaca kale waxay arrintu u muuqatay elimad marka dambaysa arrintu sii darsanayso hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay hanaankeedii barnaamijka cuntada adduunka ee ka waday dalka Suudaan kadib markii saddex ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay dagaalada halkaas ka soconaya waxay sheegeen dagaalada marka dambaysa ay sii xumaanayaan xaaladdan oo u eg tahay mid fool xun oo aan ka soo raynaynin qaramada midoobay waxay cambaaraysay in shaqaalaheeda la beegsado isla markaana waxay ku tilmaameen shaqaaluhu ay ahaayeen kuwa muwaadiniin oo iyagu gabi ahaanba u shaqeynayay inay dadkaasi cunto iyo dawooyin gaarsiiyaan in ka badan 20 caruur oo yaryar ayaa la sheegay in iskuul ay caruurtu seexdaan oo podin ah ay ku markaasi go'aansanaayeen iskuulka Company Boys School ee magaalada caasimadda Khartoum ku yaalay ayaa la sheegay in caruur yaryar oo da'dooda yar tahay ay halkaasi ay markaasi ku go'aansanaayeen kuwaas oo waalidiintu goortii horeysay ay ka dulbooyayeen sida ay sheegayso markaasi madaxa iskuulkaasi Joseph Francis oo asagu ahaa school mission ah nooca kaniisaduhu maamula si kastaba noqotay waalidiinta ayaa goortii horeysay la hadlay caruurtooda waxayna u sheegeen in ay sugaan intay dadaal bixinayaan iyagoo jaramada ka codsaday in caruurta inta la soo badbaadinayo ay sugaan magaalooyinka Umudurmaan iyo Bahri ayaa la sheegay in gorsii horeysay ay masiibo xoogan ayagana ay ka dhacday iyadoo wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in magaalo ay dabka ku dhajinayso isla markaana arrintu u egtahay midba marka dambaysa faraha ka sii baxaysa qaada dhigaha arrimaha waddankaasi Suudaan Yusuf Saad oo asaguna sidoo kale la taliye sarana u haatan nin kale ka kan ee dhiiga ku fool dhaqday Hamati ayaa sheegay in dagaalku uu sii socod doono tan iyo inta laga burinayo waddanka wuxuu ugu yeedhay xoogag isbahaysi oo fool xun oo wala jeedo militariga rasmiga ee dalkaasi hase yeeshee ciidanka militariga ee waddanka Suudaan ayaa ka digaya in ilaa ay dabada kaga dhacaan kuwan oo ay burburiyaan waddankana ka saaraan isla markaana ay kala diraan waxay ugu yeedheen RSF oo ay ku tilmaameen inay tahay jabhad falaagowday in aysan fariisan doonin isla markaana nasa doonin khadka telefoonka ayaa la sheegay in jananka waddankaasi xukumo Masar Jarna Abdul Fattah al-Sisi uu goortii horeysay hogaamiyaal dhowr oo gobolka la hadlay isla markaana uu ka bariyay inay gobolka u anbabaxaan taasoo dadajisay ayaa la leeyahay qabanqaabada xooggan ee wadamada qaarkood haatan ay isugu dumayaan inay ergaad u culus ay u diraan halkaasi gulisi waxaa sii soconaya markaasi dhibaatooyinka naxariis darrada ah ee ay sameynayaan ciidamada dhinacyada halkaasi ku diraraya oo ay kamid tahay yaali marmarka ka dambaysa in ay gabi ahaanba ay xaqiijiyaan inay dadkooda ay u naxaan ayaa la sheegay dadka qaarkood ayaa goortii horeysay xaqiijiyay in qaarkood ay ku go'doonsan yihiin masaajido kuwa kalena ay ku go'doonsan yihiin meelo kale kana idlaatay cuntadii iyo wax kastaba ayadoo goorta xabadu bilaabatay ay ahayd goortii horeysay dadka qaarkood ay ku itikaafayeen masaajidada oo ay doonayeen inay ka jilaabtaan khayraadka 10ka Ramadaan hase yeeshee taas waxay kuwa ay jaramadu ay ku ciyaareen wararka Suudaan ka imaanaya waa Tripoli dalka Turkiga wuxuu ku dhawaaqay isaguna inuu halkaasi ay ku go'doonsan yihiin dadkiisa waxaana dawladda dalka Turkiga ay sheegtay in ay khadka internetka dhinaca satellite-ka isticmaalayaan safaaradeeda ku taala Khartoum ay si dhow ula socod doonaan waxay ugu baaqdeen in ay si dhow ula socdaan raqaaqa halkaasi iyagoo ka dalbaday goortii horeysay in aysan haba yaraatay dhibaato loo geysan dadkaasi ilaa hadda dulmaansiinta dunidu kamaysan bixin qaarkoodna way ku go'doonsan yihiin waddanka Suudaan dhanka kalena wararka ugu dambeeya hadda ka soo baxaya waddanka Suudaan waxay sheegayaan in dhimashadu ay cirka isku shishireerayso isla markaana daryanka rasaasta ayaa sii xoogaysanaya kolkii ugu horeysayna dabacsanaan iyo baaq xoogan ayaa ka soo baxay Hamati isagoo ninka ka kan ee la kari waayay wuxuuna ugu baaqay bulshada caalamka inay soo farageliyaan dagaalka baan ee ka soconaya Suudaan isagoo warqoraal ku qoray bartiisa Twitter-ka ayuu wuxuu sheegay in uu dunida ugu yeedhayo inay ka hortagaan wuxuu ugu yeedhay dambiyada dagaal ee uu gelayo
General Burhan oo ula jeedo madaxweynaha golaha madaxtooyada wadankaasi General Cabdifataax al-Burhani oo ay jaalahaayeen haatan waxa uu sheegay in diyaaradaha MiG-29 uu la dhacayo wadanka isla markaana uu ku tilmaamay inay dambiyo dagaal ay yihiin waxa uu sabirayo tan ayaa loo arkaa markii ugu horeysay in uu dareemay darbaaxada xooggan ee ciidamada militariga oo doonaya in ay xaqiijiyaan gacan sareynta ciidanka xoogga iyo in la kala diro kooxda si kastaba ha noqotee xildhibaanayaashu waxay isku raacsan yihiin in kooxda la kala diro iyo in ugu yaraan la wiiqo awoodooda ay kala duwan yihiin dadka badankooda waxay qabaan in awoodooda la wiiqi karo haddii gacan sareynta dhinaca cirka iyo burburinta inta badan agabka militariga ee wataan ay sii wadaan ciidamada cirka waddanka Suudaan laakiinse qaarkood waxay meesha ka saarayaan in gabi ahaanba Xameta meesha laga saari karo isaga iyo ciidankiisa kumanaanka gaadhaya isla weyn hubaysan